tahay walaalayaal waan idin salaamnay waxaan ku salaameynaa magaca rabbigeena iyo badbaadiyeena sayidkeena ciise masiix soo dhawaada oo ku soo dhawaada jidka jannada waa aniga oo Shaaniye Gaabo iyo ninkeyga Shiina Gaabo Shiina soo dhawaado mahadsanid Shaaniye rabbiga ku barakeeyo walaalayaal waxaan idin wadnaa mowduuc ku saabsan qirashada dambiga qirashada dambiga ayaan ka sheekaysanaynaa oo isla meel dhigaynaa hadii rabbiga idmo laakiin ka hor waxaan idin ka codsanaynaa inaad subscribe ku samaysaan YouTube-keena jidka jannada iyo YouTube-keena Shiina Shaaniye Gaabo iyo ma artay nagala socdana mar walba baraha bulshada sida Facebook-ga jidka jannada ayaan leenahay Facebook page ah iyo Shiina Shaaniye Gaabo oo ma artay personal profile xaggaas nagala socda waana mahadsantihiin mar walba saanoo daawataan isaanoo daba socotaan asxaabteena qaaska ah rabbiga ha idin barkeeyo dhamaantiin baan waan ku faraxsanahay aad ma u mahadsantihiin marka waan u duceynaa kadibna casharkeena aan u gudagaleynaa oo ku saabsan qirashada dambiga aan duceysano أبو قدوس وأدم هذله كوم هذا علينا ربي وأدم هذا ما تسكله وحول بنسيه وحول بنوسي دياري وناكسن ربي أضاء إله وناكسن وحن كبرينا هذا هذا لنا ربي وهذا هذا الكاجا وحيابها أنشيء إن هذا وحيابها ربي وحول بوناكسن وأفكارنا كصوب حياة كواجه هذا ربي وحن كبرينا ذاك نديجي سنة ربي قلبي هذا التعب ديجو هذا ربي وأديك الأحشاء ربي وسيه ومقلان وحول وناكسن أدي أو تلقش إنه مقلان ما قعها أمان هذا ربي أنت صح كوبرينا ما قع سيد كينا إيه بدبادينا عيسى مسيح آمين 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 قرشة الدنبي شينا مركل لها ذاتك وي كو أدكتا سماها إنه وحلا قرته يا دنبي قف إنه دنبي المهير حتى هو كو أدكتا كو أدكتا هذا هو أدكتا قف إنه له أنا جوان دنبابي أما قلدان كهجلي أما وحنا قلد كنا كل حداعي أي هو أدكتا لكن لا وحلي هاي قرشة الدنبي جوان قرتها واي بني آدم أنا بني آدم كسلويه يعني هذا بدن كبير باكو إلا وإما ذو قفك عيسى مسيح أو اسمه سياسية سيد ربي اسمه سياسية أو برته إن ما أرتي عفسك يروح وناكسنيا لكن إن لقرته دنبيجا أي وحيد هايبة إن اعتماد بوزيشن اعتماد أنا قلت كسمي ويدتك وينعبهين إن يراد أنا قلت سمي وينعبهين إن أم وقدان قف أو قلت قلي قف البابا سقلت كسوق قريب بدنا واحد ما دشان ذاك بين إنها شجع ويبدأ بقى ويد دبولان وبينك ودبولان وحنا أديك ما سمعي ما يأمركوا يراد قف كي وحي سمي وقريه دنبيجي وصاسكو سمي ما كقرشة دنبيجي كوب وحكي ما تشانية إنقر دنبيجي لقرت به إنه وناكسن تاي ربيجا وحنا نجو ثيري وحنا لقى برايا باللوجي مركي آدم يحاول يقلد إجلان أيجا أسئلة اللي قرشة أنت يقرن لها إله وحو يري آدم كو آوي تتبع قاربه وحمليان آدم كو آوي مثل اللي هي آدم من تيجي وتاكل اللي هي إنه بونتي إنه إله أركينين لكن وحليه ما قرتد كالي وقيرو دنبيغا قيرو آدم وكوغا waxa sameeyay haye ku aaway markaasuu dhuumanaya uu leeyahay halkan baan joogaa maxaa ku dhacay markaa isku daboolay ma xansho isku daboolay waqti qaabanaantoodii arkeen wuxuu isku daboolay dhirta isku daboolay wuxuu rabaa dambigiisa inuu daboolo rabaa ceebtiisa rabaa inuu daboolo markaas waxa leeyahay maxaa waxa qaladka sameeyay asaga ma qiran qaladkiisa gabadh xaaskiisa fartiis ku fiiqo iyada qaladka iyadina abaysadii gacanta ku fiiq bini aadamka dhana markaa saas taasi waxay keentay markaa qirasho haduu waagi uu qiran lahaa شاني ما حد إعلان هدو قرن لها ربي يقول عفن لها وحولي لها قلت كسان قال يعفي ربي ولا عفن لها لكن موصن قرنن marka qirashada ibkaas leedahay qirashada dambiga hadaan qiranin ilaah waa ka fogaanaysa qirashadana wax la dabooli kara ma aha ma daboolmayso wuxuu isku dayay inuu isku daboolo marka maxaa la yiraahdaa geed caleentiisa wax ma daboolaysaana geed caleentiisa wax mu qarinayso fiiri laba maalmood ka bacdi way qalalay kala daadanayba iyada dhanba marka ilaah un baa ku dabooli kara marka dambiga ilaah un baa maartay asturi kara dambiga ilaah un baa cafin kara ilaah wuxuu leeyahay isku qirta dambiyada qirta ana qirta waxay ka bilaabanaysaa isaga inaan u qirano marka hore shaaniye ka bacdina bini aadamka aan u qirano wixii qalad aan galnay waayo aniga hadaan adii qalad ka galay ilaahna dambi waa kala gashaa waayo ilaah umadiisa ah exactly marka wixii saas iskala socdaan marka inaan qirashada dambiga waa arin aad wanaagsan waa inaan dambiyadana qirano si runta u timaado shaaniye runta markay timaadana runta way ku xoreynaysaa runta marka ku nooshahayna rabbiga la nooshaa rabbiga isaga runay ilaahay amiin marka aayad ugu horeysa bal aan isla fiirino shaaniye kadibna aan si dhexgalna aayadaha kale يا نأخذ. يحنا كوات كو سجال وحاكو هدينو دنبيذنا نقرنا السجوا آمن يعادل إنه دنبيذنا إن جعفيه أو إن جندي فيه حق الرضا أو دن وهدينو قرنا إله حق السهدان قرنا وحلو له دنبي وقف كله قرنا وحوا إله واي اسم مسيح دانو قرنا إنه ربي جاني هاي قرنا إن دنبي لنا هاي أباهنا هاي دنبداف ونعفنا وحالي يروح عادل ويان دنبيذنا رن أيو نعفنا
oo inaga nadiifinaya xaq darrada oo dhan uu naga nadiifinaya sida waxa taa ilmo yar oo ku dhexdhacay meel wasaq ah ku dhexdhacay oo kaleeto oo dhiiqa ku dhexdhacay oo kaleeto maanta daa aragto ilmahaaga meel ku dhexdhacay waa kadib orda soo qabanaysa waa nadiifinaysa waa tirtiraysa waa hagaajinaysa laakiin haddii ilmihii uu maxay ahayd uu been sheegayo nacam uu rabin in la nadiifiyo kale ama meeshii uu ku dhexdhacay taa meel uu ka qarinayo oo arkeenin dhib badan ee ka jirta marka ilaahay wuxuu leeyahay qirta dambiyadiina hadaa qirtaan aniga waxaan diyaar u ahay inaan idinka nadiifiyo oo idinka xadgudubiyadiina aan idinka tirtiro marka waxa ugu horeeya oo in la hoos mariyo weeyaan isoo saasiyo oo la qirto dambiga loo qirto cidda dambi ka gashay loo qirto ilaahay dambi ka gashay dambiga loo qirto dadka daa ka gashay dadka loo qirto dadka marka ka gashayna ilaahayna waa ka gashay taas ogaada soo sheena idin sheegay waayo waxaan hore uga aragnay kitaabka waxa ku qornaa markuu maxay ahayd wiilkii lumay oo kale markuu ku dambaabay aabihiis oo qalad ka galay markuu soo noqdo wuxuu dhahay aabbo adigii ilaahan ku gafay icafi ha waayo ilaahay inuu ku gafay wuxuu ku gafay ilaahay aabihiis uu qalad ka galo ka tagay marka waxa waaye bini'aadanka daan qalad ka galna waaye ilaahayna waa ka galnay labadaba inaan cafis weydiisano waa ilaahay kaliya ka galnana ama jirkeena ka galnana ilaahay inaan cafis weydiisano waaye marka way dhacdaa shaaniye badana waxaan arkay majority inta tirada badan hadii dadku ay isku qirtaan dambiyadooda way iscafiyaan way soo cishtaa waan isjeclaadaan laakiin hadii ay iscafin waayaan oo isku imaan waayaan oo si kala fogaadaan shaydaankan oo si kala fogeynaya saaxiibtinimadii jirta xataa way baaba'aysaa marka qirashada dambiga waa step wanaagsan oo dib la isku imaanayo oo wanaagna loo imaanayo oo maartay hadii la iscafiyo waa la isku dambi dhaafaya waa la sii jeclaanaya waa la isku soo dhawaanaya marka dambi dhaafku waa waxa aad u wanaagsan laakiin waxa jira cadow baan leenahay shaydaan ah oo raba anaga iyo ilaah inuu na kala fogeeyo anaga iyo bini aadanka is jeclayna inuu na kala fogeeyo mar walba wuxuu naga dhigaa kuwa isla weyne ee ku jirto oo maartay oo dhahayo dambiyadaada maxaa u qor adiga qof ka tahay fiire adiga hebel baa ama hebel u tagaayo oo dambi dhaaf weydiisanayo ma aniga qaldami karana macnaas marka isla weyne intay jirto wax fiican maaha isla weynida shaydaanka iskale laakiin ilaaheen anaga aan haysano waa ilaah isoosaasiinta wuu isoosaasiye markuu korka imaado dunida imaaday isoosaasiinta ugu taas waa intuu dhaxda xukumaan ku xirtay ayuu xirtiisii lugaha u dhaqay Ciise Masiix oo yiri sida aniga idin sameeyna isku sameeya isoosaasiinta wax aad wanaagsan waay waxana imaanayo hadaa isoosaasiinta aad taqaanid inaad dambi dhaafna ama artay u dadegtid in walaalka uusan ka fogaanin in walaalka uusan ku caraysnaanin marka ina iscafino walaalayaal aad bay wanaagsan tahay ee aan barano aan ku dhiirano in ma artay bulshadeena aan u muujino in iscafisku aad wanaagsan wadankeena hadda maxaa burburiyana colaad badan baa la kala haystaa dadku waa isdagaaleen dad badan dad iska dilay wili iyadoon colaadii wixii ma artay la kala habeeyeen baa leeyahay aan shaqayno dadka misal shaqayn karaan colaad isku qabaan wili waxay u baahan yihiin si daacad ah oo qalbi wanaagsan inay isku soo noqdaan oo ka hadlaan arintii oo iscafiyaan oo isku qirtaan dambiyadooda laakiin qofna marba qof kale dambi u qorto ma reer hebel dambi u qoran karana ma reer hebel baa dhihi karta iga raali ahaada waxaan dhan isla weyniya ku jirta weligeedna ma damayso wayna soconaysaa ilaa aan nimaadna inaan is hoosaasaysiino oo nimaadna position ah inaan ma artay dambi dhaaf weydiisano oo ma artay aan is hoosaasaysiino oo aan iscafino marka walaalayaal cafiska aan barano walaalaha masiixiintana u muujiya walaalaha kale tusa in iscafisku wax wanaagsan yahay anagana nalaga barto anaga aan barano aan muujino inaan anaga isjecelnahay oo hadana ma artay mar walba aan iscafinayno marka shaaniya ka sii wad hadaan oo akhriyo Yacquub 5:16 waxa ku qoran midkiinba midka kale dambiyadiisa ha u qirto oo ha u duceeyo si aad u bogsataan nin xaq ah bariyadiisa shaqaysa wax badan bay kartaa meeshan waxa leeyahay dambigiina isku qirta fiiri dambigi aan ilaahay mararka qaar dambigi ay ilaahay ka gashay waa gooni kii bini'aadanka ka gashay waa gooni bini'aadanka qalad ka gashay waa inta u tagto dambigaaga u qirataa oo u sheegtaa laakiin annaga hadaa masiixiin hadana wax kala sameynaa dambiyadana isku qirana waxa waaye qofka ku dambaawday kaliya ma ahane waxa laga yaabaa inaad jirkaaga ku dambaawday inaad ilaahay ku dambaawday inaad wuxuu sameysay waxa loo baahan qof kale oo ilaahay yaqaan oo waxba ka sheegayn hadhow oo birka maaxda isku dhacdaan aan ka hadlaynin oo haysto maxay ahayd iimaanka rasmiga haysto oo lagu kalsoon yahay in uu ka hadlaynin sida kaniisaha qaar marka la tago waagi hore waxa jiray maxay qol gooni ah loo sameyn jiray wadaadka ma ku arkaa xitaa wajigaaga meesha galisa waxa sheegaysa dambigaaga shay oo dhan ma aha inuu asaga ka cafinayo laakiin waxa uu kaaga duceynaya dambigina waanu ka siina wuxuu ku leeyahay waxaas ha u noqon ilaahay asas dhahay isku duceeyo midkiinba midka kale dambiga ha u qorto ani marka wixii xun oo galay oo dhan aan u soo sheegashiino wuu iga duceynaya iguma caynay birka maalin iguma tuuray iguma xumeynay iguma ceebeynay dadka iima sheegay laakiin wuu iga duceynaa ana sidoo kale isaga uga duceynaya waxaan leeyahay maxay tiino
maxay waxaas mardama sameeynaha u noqon waana ku duceynaan leeyahay waanaan ka siinaya waayo mararka qaar xitaa Yurub waxaan ku aragnaa dadka markuu dhib haysto familada dhib haystaan waxay u tagaan psychologist dhakhtar ay u tagaan oo maxay tahay counseling lagu sameeyaa waa loo tagaa dad u tagayaan hor fariisanayaan dhibkooda u sheeganayaan dambigooda dhan u sheegayaan maantooda dhan u sheegan isku qiranayaan wuxuu isagu ku xun yahay waxay iyada ku xun tahay hadhow talo fiican la siinaa kitaabka quduuska wuxuu noo sheegay dad sidaas oo kale ah oo kaniisada kuwa ilaahay yaqaan waay ma aha qof kasta inaa iskaga sheega oo birka maalin ku sii cayn kugu cayn karo laakiin qofkii ilaahay ku xiran oo la og yahay inuu counseling ku siin karo ama talo fiican ku siin karo haddana ku duceyn karo kaasa ku dhaha waxaas mardama ha sameeynin meelaha xunxunka ha tagin oo dhibka ka soo gaaray kula talin karo kuna duceyn karo jilbaha dhulka inta dhigo sigay adigaba asal duceysanaysaan rabbiga aad baryaysaan taas waa tuu ilaahay raba inaan sameeyno ayuu rabbiga aad u baahan yahay oo dhahay sax waa shaaniya aad ba u maasantay waa arin aad u fiican dambiga qirashadiisa inuu adag yahay waa ognahay laakiin dambiga hadaadan qiranin ama qaladka aad sameysay hadii aadan qiranna banaanka soo dhigin shaaniya wax waa badan asax ku cunaayba buu ku cunaha qofka markuu qalad galo ma artay wax waay wuxuu ka qaadaa depression ka qaadaa walwal ka qaadaa wuxuu ka qaadaa ma artay cabsi kala soo galayso wixii way ku weynaanayaan markaas uu qarxaya laakiin qofka markuu wixii dhibaayay oo ku qaldamay uu soo bandhigo sida hadal sheegay isku qirtay dambiyadiina oo aan ku imaado waxaan sameeyay oo qalad ah oo adna ma iga warcelisid oo ma artay iga tala fiican iga siisid kadibna ay duceysid qofkii wax uu nafisaya nafiska wuxuu keenayaa qofkii inuu daacadnimadii culayska ka digay daacadnimadii dib ugu soo noqoto marka inaan dambiyada isku qirano aad ba wanaagsan tahay sida shaani hadda ay sheegtay qof walba qofku ka kalsoon yahay uu aaminsan yahay in waxyaabaha uu sameeyay uusan sii faafinaynin u tag qofkaas weydiiso tala weydiiso ha kaaga duceeyo ha oo quduusa masiixa ha kaaga duceeyo ka bacdina ma artay arinta way xalismaysaa waana soconaysaa marka midna waa qof dambi asaga iska galay oo qalad asaga galay oo sameeyo xumaan ah oo uu walaalkiisa u qiranayo oo ka bacdin lagu duceynayo tii horena waxay ahayd qaladaadada dadka iska kala galaan iyo qaladaadada ilaahay laga galo marka mid walba siday ahaato ha ahaatee qalad waa qalad waxa la rabaa in la qirto oo laga toobad keeno shaaniya nabi daawud oo ah boqor ahaa oo boqor weyn ahaa wuxuu ahaa markuu qalad galo mar walba ilaahay u soo noqonay wuu qirinaya macnaha xadgudubkiisa wuu qirinaya anigana waxaan leeyahay kuwii aniga aan doortay nabiyada ahaa haddii sidaa ay sameeyeen sidaa bay sameeyeen idinkuna sidaa sameeya marka aayadaha halkan ku yaala waxay cadeynayaan nabi daawud markuu boqor daawud markuu qaldamay sidoo rabbi uu soo noqday ayaa halkan aayadaha inoo cadeynaya inoo sheegayaan sabuuradii 32:5 waxay leedahay dambigeygii adigaan kuu qirtay oo xumaantadeydii ma aanan qarin waxaan iri xadgudubkeyga waxaan u qirnayaa rabbiga marka waa nabi waa boqor waxa waaye nation inuu bini'aadam uu dambaabaya dad badana waxay aaminsan nabiyada inaysan qalad qof walba oo qalad bini'aadan ah qalad ayuu galaa qaladkana waxa waaye qofka qalad galaa waxa ugu wanaagsan qolka qaladkiisa ka soo noqdo ka qoomameeyo oo ilaahna u keeno u imaada hadii aadan in laakiin qof bini'aadamka ma qaldamo ilaah baa la meel dhigtay ilaah baa ka dhigaysa ilaah baan qaldamin ilaah baan dignin marka nabi daawud oo boqor ahaa aayadan halkan wuxuu ku cadeynayaa uu leeyahay waa waxii rabbi u waxyooday dambigeygii adigan kuu qirtay dambigu qirnaya waa arkaysaa anagana ciwaankan wuxuu ahaa dambiyada aan qirano si la isku wada cafiyo يو قرت بيجس إله حمانتوينك وقلي يا موسى قرنن وهركان إله وكان وحليه وحن نسميه ربي ويعفي إله أنا هداي عيدي كو أنسوا قادنا إله وعدل مركا الدم بقى هركان تبوك عفينا يا مركا عيدنا عدينا إن ربي ما عرته وإن لو قرت وناكس ده سو كو عفي إله مركا ولا عليه الدم بيدنا ينا قرنن قلادنا ينا كفانن أو قرصنن ينا دين أنا وحن هاي 20 دلة 30 دلة حمان اللي وفانه معها حمان وفانايا ما تشاري تدبنا حمان وفانايا نينا waxa laga yaabaa inuu kuli aninta soo naagan aan fuulay nina waxa laga yaabaa inuu xumaan ku faanaya xumaan intuu qiran lahaa oo dib ugu soo laaban lahaa wuxuu kuli anay gabdhahan garaaca wax xun uu xarwa inuu kaaga dhigo wax wanaagsan kaaga dhigo gabadha laga yaabaa inay tiraad laftigaada inta soo qofan la seexday wax wanaagsan iyadoo ahaynaya laga yaabaa inay ku faanto waxa soo kale waxa la rabaa inaa rabbiga hor keento inaa qirato dambigaaga oo ka qoomamayso aad dib ugu noqonin ilaa horkeen xumaan إساكا عفناي سي أو جذبت أو نقطة قف وناسن إلى أوتر جينا أهل. هدي أقرسين وحاب قيامين السنفط هذا يدتك كل نور يهلك بل هذا ده قف كل السح حتى حتى نينك بيرك مال جورسن لهذا قيامين سما قبل جورسن لهذا يا قيامين السا مرك قار وحارقنا محيحة وحارقنا دت وحليها بجيران مكان كو ما ذي يربو كلانو ير في المنطقة مكان قالوا كلام مرك أرتينين ده هاي أو يقرأ الهاو
marka inta isku xanaaqsan gabar kale la sheekaystay igra la naagtiisa uu leeyahay igra la haw wuu qiranaya in maxay ahayd uu dambi ka galay naag kale inuu la sheekaysto kaliya haduu la jeeftan kaba sii lama ogolo nin Soomaali ma intuu naagtiisa u imaado dhila naag kale aan damcay maanta aan la soo sheekaystay igra la hawaan dambaabay ilaahayna waan ku dambaabay ku dambaabay igra la haw ninku dhahay ma jooga waa yar yahay haduu jirin hadii kale ma jiraba taasna waa waxa la diidan yahay ilaahu wuxuu rabaa inaan ishoosiisino aan u keen waalidka hada qalad ka gashi tira waalid waxa qalad ka galay hada qof kale qalad ka gashi u sheegtid hada wax dhacdid tira waxaan dhacay oo soo celisay lacagta ka qoomamaysid hadii wax haday soo celisay hadii been sheegtay beenta ka toobid keent hadad isku diraysay ka noqo waxa soo dhan wax kasta oo culays kugu noqonaysa qarsanaysid oo maxay sir ka dhiganayso xumaan ah waxa loo baahan inaad ka toobad keentid oo dadkan cafiska weydiistay ilaahina cafiska weydiistay ilaahina ku cafinaya hadda laakiin hadda qarsatid waa ku jiranaysaa runtii waana ku waalanaysaa marka ugu dambeysana aakhirkaaga cuqdada ku dilayso ama adaab isdilaysid waayo hadii aad guilty dareemayso qalbiga ka jirantaa maanta waxaan aan galay qaladkan aan galay hebel ma fiirin karo naagteedii aan qiyaamay kala ku karwaday naag kala dhinaca la hadlay ninkeyga aan qiyaamay hooyadii aan qiyaamay walaalkay aan qiyaamay shaqadii aan qiyaamay waxa waay meel agaaraysid ma jirto waxa waay adiga dhan waxa ku dilay cuqdada ku dilaysa waana dhimanaysa marka sidaas uu ilaahay wuxuu leeyahay ayadahan soo socdo bulshada oo akhri maxay sabuurida 18 hadaba anigu xumaantadayda waan sheegi doonaa oo dambiyadeedana waan ka qoomameyn doonaa sida la rabo waa inaad qoomameysaa oo dambigaagan aad sheegtaa ilaahay u sheeg dadkan u sheeg culaysta ka digana xitaa hadaa qof qalad ka gashay naagtaada qiyaanta ninkaaga qiyaanta ilmaha qiyaanta hooyada xitaa hadaa qalad ka gashay hadaa u sheegta anil meega markay yareeyaan oo kale dad wax sameeyaan oo kale ay dhahan oo bakeeriya naga jabay ama waxaan daadina inta wax ka baxna ama lacagaan tuurnay waan ku farxi jiray iska daa inaan xanaaqay aad aan u farxay waxaan u farxi jiray daacadnimadooda iyo qarashada ay qirtaan iyo imaado waxaan dhihi jiray macna ma laha waxa ugu weyn adduunka hadda ay keentaan ogaada inaa cafis tihiin laakiin imaada oo iska sheega because sasa idin roon inta caloosh ku haystay waa ku jiranaysaa aaminna ma aha qof waxaan ka hadlayno waxa waa qoom ka fiiri ka qoomameynta iyo macnaha in maarta dambiyada la isku qirto iyo xadgudubada la qirto laakiin macnaha ma aha inaan ku socono xumaanto inaan ku socono macnaheedu ma aha waxaan ka hadlaynaa waxay tahay qofkii xumaanta sameeyay inuu xumaantada ka qoomameeyo oo ka toobad keeno oo ilaah u yimaado laakiin anaga meeshan uma joogno inaan niraahno inaan maarta qaladaan sameynaa ma qaladada inaan sameyno first place ma fiicna qalad inaan sameyno horta inaan dambi galno wax wanaagsan ma aha laakiin haddaba dhacdaba in dambi aan galnay bini'aadina nahay inaan dambiga ka toobad keeno ka qoomameyno si aan dib ugu noqon isla qaladkaas sorry laakiin ka waran iska qaladkaas hadaan dib ugu noqonayo macnaheedu waxay tahay si daacada ugu maadan qoomameynin si wanaagsan u maadan sheegin si wanaagsan u maadan keenin dambi dhaafka marka waxay ku noqonaysaa wax habit ku noqonaysaa ama caade ah ku noqonaysid marka waxaan rabnaa inaad ogaataan in dambiga uusan fiicnayn marka hore laakiin hadaa dambaawdid oo qalad ku dhaxdhacdid ilaah u toobad keen baan ku leenahay laakiin isla dambigii hadana ku noqonin ka qoomame oo ka soo fogaaw dambiyada ilaah waa caadil uu ku cafinaya waa ognahay anagana waxaan rabnaa dadka iyo annaga inaan wanaag wada noolaano ilaah iyo dadkana inay wanaag wada noolaadaan marka wax wanaagsan waa meesha wax ka socdo ka qoomame dambigaaga dambi dhaaf weydiiso xadgudubkaaga ka toobad keen kadibna ma artay nolosha ka sii wad ida wanaagsan ina wanaagsanaato loo talagalay nolosha waa run mahmaahayadiis 28 ayaa waxa ku qoran kii xadgudubiyadiisa qariya ma liibaani doono laakiin sakii qirta oo hadana ka taga naxariis buu heli doonaa ilaahay saasuu doonaa ilaahay wuxuu doonayaa in aan maxay ahayd qiranaa qaladkan galnay haddaan dhahno waan qarinayna maba liibaanays waayo mar un baa ka shifmaysaa fiir dadka wax ka qarinaysa maalin lagu qaban doonaa dadka qiyaameynaysa naagtaada hadda qiyaameynaysa maalin lagu qabanay ninka hadda qiyaameynaysa maalin lagu qabana waalidka hadda qiyaameynaysa deriska hadda qabs qof kasta oo qiyaamo iyo sir ah ku dhex wadid oo aqal ka galaysa mar un baa lagu qabanay ilaahay ka galaysin asigana mar un buu ku qabana waan lagu qabana mar walba gacantiisa ku jirta laakiin maalinta xukunka asigana hor imaanaysa taas jirteeda waxa lagu leeyahay ma liibaani doono qofka oo maxay ahayd xumaantiisa iyo xadgudubkiisa qariya laakiin kii oo ka taga ya naxariis buu heli doona ina ka tagtaa la rabaa ina wixii shalay aan ku noqdo ma aha qaladkan shalay galay qalad kala laga yaabaa ina gasho laakiin kii la hada ku celcelinaysid waxa uu ugu talagasho waa oo sidaas okay waa liiga cafiyay dambigan okay ana hadan xumaanteen gala li cafiy ma aha toobad keena lagu leeyahay ilaa wuxuu ku leeyahay ka tag
meesha uga tag wixii aad shalay samaysay ha u sii noqonin wixii hadaa wax xadi jirtay mardam waxa xadina laga wada hadaa sinaysan jirtay mardam ha sinaysan hadaa wax xadi cayn jirtay wax damba cayn nacam xumaantii ina meesha uga tag tu kala laga yaabaa ina dhex gashid laakiin ka toobadkeen hadhihin aniga maanta waa li cafiyay hadana bariyan ku soo noqonayo waa ugu tala gashid oo tiraan waa li cafin doonaa aniga waxaan ahay masiixa ahay waa li cafiyay dambigay waa li cafiyay hadana dan sheegto waa li cafina waa run waa lagu cafina markastana waa lagu cafina laakiin ilaahay wuxuu ku leeyahay ka tag anaga marka waa ina ilaahay adeecna oo aan ka tagnaa wixii soo maasheen hadii la dhahay ilaahay ina amarkiisa adeecna waay aadiya oo toobad keeno ya shaani waxaan ka hadlaynaa waxa waaye dambi la galay iyo qirashada dambiga صح iyo wax lagu xadgudbay iyo dambi dhaaf la weydiisto صح dambiga ugu weyn oo bini aadan uu galo baan rabnaa halkan idin kaga sheegno marka hore dambiga ugu weyn waxa waaye qofka inuusan rumaysanin ciise masiix dambi ugu weyn صح waaran waxyaabahan kala dhan waa dambiyo caadi ah oo sidaan ay yihiin laakiin dambiga ugu weyn oo xataa maarta ku mutaysan karta xataa cadaabka inaad ku gashid waa adigoo aan rumaysanin ereyga ilaaha quduuska ah ciise masiix jannada maxaa lagu galaasheen waxa lagu galaa jannada waxa waaye rumaysadka la rumaysto ciise masiix oo ereyga ilaah maxaa lagu aadaa cadaabkan waxa lagu aadaa inkraada asala inkiro dibada asala inkiro ayaa ay tahay ilaahna wuxuu rabaa kitaabka sida ku qoran in kulli ay wada toobad keenaan oo ay gartaan runta inay gartaan runta yaa ah ciise masiix kulli wuxuu rabaa marka ilaah wuxuu noo soo diray ereygiisa hadalkiisa noo soo diray si hadalkiisa aan u garano oo asaga uu garano kii hadalka ilaah gartaa ilaah ay u gartay marka ilaah inkraadiisa waay marka sheekada la sheegay hadalkiisa oo socdo ilaah inkraadiisa ayaa ah waxa ugu xun oo dambi ah oo la galo falimaha rasuulada 2:38 waxay leedahay markaas Butrus iyagu wuxuu ku yiri toobad keena oo midkiin kasta ba lagu baabtiso magaca ciise masiix dambi dhaafkiina aawadiis oo waxaad heli doontaan hadiyada ah ruuxa quduuska marka dambi dhaaf waxa ugu baahantaa waxay tahay waxaagii hore inaad ka soo tagto noloshaadii aad ka soo tagto oo qaldanayd oo xumeyd oo u timaado ciise masiix waa markaas toobadkeen marka lagu leeyahay marka intaad hadda toobadkeen wax loo leeyahay dadka waxa waa intaysan toobadkeenin ka hor micnaha waxay tahay qalad ay ku jireen xadgudub ay ku jireen inkraad ay ku jireen waxa wax xunay sameeyay laakiin marka u timaado ciise masiix waa markaas marka toobadii ala timid marka meesha wax yaala waxay tahay marka annagana aan idin cadeynayna in rumaysadka aadan rumaysanin ciise masiix ama ereyga ilaah aadan rumaysanin ay tahay qalad adiga ku dhex jirtay oo xadgudub ay tahay marka xadgudubkaas qofku waxa la rabaa inuu ka toobad keeno oo ilaah u yimaado soo u noqdo qof xaq ah oo xaq ku noqday ciise masiix aaminaadiisa si jannada u aado صح marka toobad keen ka sad maantana idin kugu yeerin seel ugu toobad keenaa is dhihi kartaa magto waxa dhihi kartaa ani waxaan rabaa inaan toobad keeno inaan masiixa raaco maxaan sameeyeen doonaa maxaan sameeyaa see ku toobad keenaa maxaan sameeyaa soo marka toobad keenka waxa weeyaan in hadda hadaan u akhrin Roman 10:9 waxa ku qoran Roman 10 waxa ku qoran ayad 9 maxaa yeelay hadaan afka ka qirati in ciise yahay rabbiga oo qalbiga ka rumaysay in ilaah isaga ka sarkiciyo kuwa dhintay waad badbaadi doontaa waayo qalbiga waxba laga rumaystaa xagga xaqnimada afkana waxba laga qirtaa xagga badbaadinta oo adna waad iga cafiday xumaantii dambiyadeeda marka rabbiga wuxuu ku leeyahay hadii aad rabtid inaad masiixi noqotid waxa loo baahan yahay qalbigaaga horta ugu horeeyo in aad ka rumaysid afkana ka qirtid ciise masiix inuu yahay rabbiga asaga ku dhintay dhimashada ka sarkacay ku badbaadiyay dambiga dhan u keentay ciise masiixo adigaan ku aaminay waan kugu dambaabay waan toobad keenay iga cafi dambiyadeeda oo noqon rabbigayga iyo badbaadiyayga si ruuxa quduuska ah oo i hogaami inta sidaa samaysid waxa noqonaysa qof masiixi ah anaga naga mid noqonaysa caruurta ilaaha noqonaysa kii jannada loogu bishaareeyaa tahay kii dambigiisa oo dhan la dhaafata because dambiga ugu weynaa oo gashay wuxuu ahaa masiixa oodan aqoonin kaas sadaa ka toobad keentay kii yar iyo kii weyn ba ilaaha uu ka cafinayaa wuxuuna kugu yeerayaa caruurtiisa marka nala soo xiriir anagana jidka jannada la soo xiriir ama shaaniishiina gaabo youtube-yadana iyo facebook nagala soo xiriir waan maxay ahayd si aan kaaga caawino oo kitaabka quduuska ku siino oo ku sii barno bunaaga jacaylka ilaahay ee ereygiisa quduuska aan ku barno waarun xadgudubka ugu weyn oo la sheegay marka waa taas xadgudubka ugu weyn waxa waaye inaadan ilaah aqoonin ama ayaa aadan garanin hadiyadiisa iyo wanaagiisa marka waarin aad wanaagsan sida shaani hadda ay maartay noo akhrisay iyo adana gubaabaha noo siisay way wanaagsan tahay maartay inaad dib ugu fikirtid waxa rumaysan tahay hadii ay qaldan yihiin ka soo tag u kaalay runtuna way ku xoreynaysaa ma hadii rumaysaneen masiixa laba goor buu qaldan soo ma haduu masiixa aaminsaneen wuxuu ku jiraa qalad xadgudub ay ku jiraa baan xadgudubkaas waa inaad ka soo baxdaa oo aad rumaysataa oo dambi dhaaf weydiistaa kadibna u timaadaa rumaysadka ciise masiix si aad badbaadiye u heshid marka ciise masiix ka hor waxaa jooga nabi kale nabigaasoo dadka baabtiisi jiray
ama biyaha kuma quurin jiray markay dadku dambiyada qirtaan nabi yaxya oo ah nabiga ugu dambeeyay ee adduunyada imaado nabigaas wuxuu sameeyay marka dadka iyo practice-ka toobadkeenka la yiraahdo marka qofkii qalad galo uu iimaanay asaga uu iimaanay qasoo qaladkiisa u qirto markaas bacdiya biyaha la gelinay laga soo bixinay dambi dhaafka aawadiis marka dambiyadu way qiran jireen ayaga laftigooda waagaasna way jirtay dambiyada dadka inay qirtaan haddana way jirtaa wali dambiyada in la qiranayo waana wax aad u wanaagsan si dadku maartay ee nadiif u noqdaan biyaha la gelinay laga soo bixinay si qofku nadiif u soo baxo صح anaga laakiin taana waxa waaye just toobadka kaliya waxa waaye dambi dhaafka xaqnimada waaye jannada waaye everlasting waaye kan laakiin waa diyaarintii ugu horeysay in qofka toobad keeno marka Mataayo 3:5 waxay leedahay markaas waxa u soo baxay dadka Yerusalem iyo kuwa Yuudiya oo dhan iyo kuwa dadka dalka Urdun ku wareegsan oo dhan markaas webi Urdun ku baabtiisay iyagoo dambiyadooda qiranaya marka waxaan aad u focus ku saarnaa waxay tahay qirashada dambiga qofka inuu dambigiisa qirto waa wax aad wanaagsan waa wax asaga wadnihiisa u wanaagsan jirkiisa u wanaagsan noloshiisa u wanaagsan iyo maartay xiriir walbaba marka toobadkaanka aad u wanaagsan iyo qirashada dambiga marka waa run saas bay u dhacday haddana kitaabka aayado kala rabnaa inaan noo aqrino oo maxay rabbiga uu leeyahay maxay ahayd uu nooga sheegayo wixii aan ka sameyn lahayn haddaan dambaabnay haddii kaleeto bini'aadana leh inta jirka lagu jiro waa la dambaabaya ilaahay hana cafiyo mar walba laakiin mar walba inaan toobad keeno ilaahay noo naxariisanaya haddaan qirano maalin kasta inaan cafino waa ilaahu naga cafi qaamahayga si aan u cafino kuwa noo qaamisanna maalin kasta waa inaan weydiista dambi dhaaf dhiigga ciise masiix maalin walba ku nadiifinaa laakiin cafis weydiiso marka Yooxanaha 1:1-2 waxaa ku qoran caruurteydii alaleeyahay waxaan waxyaalahan idinkugu soo qorayaa si aydan u dambaabin oo qof uun hadduu dambaabo waxaynu xagga aabbaha ku leenahay dhexdhexaadiye waana ciise masiix kan xaqa ah oo isagu wuxuu dambiyadeena u yahay kafaara gudka oo kuweena oo kaliya uma aha ee waliba wuxuu yahay dambiyada dunida oo dhan haleluuya waxaan ku jeclaaday ciise masiix dambiyada dunida oo dhan waa qof kasta oo na daawanaya adiga waxa doonta ahaaw wadanka doonto u dhalo qabiilka doonto u dhalo masiixiga darta ay dambi dhaafka dartiisa ayuu u dhintay kafaar gudku u noqday kafaar gudu ku noqday marka waxa loo baahay inaan dambigeena aan qirano ko waxa la caruurtii waxaan waxyaalaha idin kugu soo qoray si aydan u dambaabin ma ogola ilaahay inaan dambaabno ma jecla ha dambaabno ku leeyahay laakiin haddii qof dambaabo aabaha xaqiisa waxaan ku haysanaa rabbi ciise masiix oo noo ah kafaar gud oo umada dhanna u ah marka waa arin aad u wanaagsan soo mahashino amiin iyo arin aad wanaagsan waay dambiyadeena dhan asaa wuxuu yahay kafaara gud kuwa aan aaminsaneen iyo kuwa aaminsan kafaara gud kuwa aaminsan kafaara gud uu noqday wayna haystaan laakiin kuwa aan aaminin ogaada ciise masiix kafaara gud ayuu idin yahay rumaysta saa u badbaadaan ciise masiix saa u badbaadaan afka laga qirtaa qalbiga laga rumaystaa inuu yahay rabbiga iyo badbaadiyaha markaas waxa noqonaysaa kuwii kafaara gudka helay marka arimaheeni maartay ku saabsanaa casharkeena ku saabsanaa dambi dhaafka maartay qirashada dambiga halkaan ku soo goynayna waa maasantihiin daawashana daawateen waxaan idin leeyahay haddana maartay subscribe ku sameeya YouTube-keena jidka jannada YouTube-keena Shiina Shaaniga iyo Shaaniga Gaabo waxaan idin leenahay nagala socda baraha bulshada Facebook-geena waa jidka jannada page-kan ku leenahay iyo maartay page-keena ama maartay profile-adeena Shaaniga Gaabo iyo Shiina Gaabo nagala soo xiriira halkaas nagala socda waan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan mar walba aan nala socotaan rabbiga ha idin barakeeyo dhamaantiinba waxaan Shaaniga ka codsanahay inay ducana u soo gogweyso rabbiyo ilaahay waa ku hor imaanayna dambiyadeena ku qiranayna qof kasta oo daawanayna waxaan ka baryaynaa inay maanta inta jilbaha dhulka dhigaan ee dambiyadooda ku qirtaan ee toobad keenan ee runta ogaadaan ee masiixa aqbalaan rabbiyo badbaada ummadaada rabbiyo kulligood ha toobad keenan rabbiyo kulligoodna ha ku aqbalaan adigana dhiiga ku nadiif rabbiyo oo dambiyadeena ki yaraa ki weynaaba cafiyo badda ku tuur rabbiyo ha xasuusan sida ballan ku qaaday badbaadi anaga iyo ummadda Soomaalida maxay meel walba naga daawanayso kuwa aan ku garanayn siiba rabbiyo una xariiso oo iyagana badbaadi oo runta helaan oo dad badan maaragtay ha soo badbaadaan kulligood sida adiga doonaysa ha u ahaato rabbi casharkaana qalbigooda ku daabac oo fahansiyo qof kasto daawado ka dhig mid uu ku barakoobo rabbi oo ku badbaado dad badan ku badbaadaan intaas waxaan ku weydiisanayaa magaca sida ciise masiix aamen waa mahadsantihiin nabaday